kul wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada sheeka ku saabsan nin aabbo ah 1000 caruur ah iyo hadalhayntiisa oo ka taagan caalamka. qoysaska qaar waxa ay ku doodayaan in la khiyaamay halka isaguna waa aaminsan yahay in wax qalad ah uusan sameyn. shahwadan uu ugu deeqay ay farxad u noqotay boqolaal ruux. Jonathan Jacob Major oo ah 43 sano jir soo shacbaxay sanadkii 2017 kadib markii maxkamad ku taala dalka Netherland ayaa martay inuu joojiyo shahwada ugu deeqayo xarumaha caafimaadka maadaama dalkaas oo kaliya xilligaas uu aabbo noqday in ka badan 100 caruur ah halka sharciguna uu xadidayo dalkaasi uu ka badan 25 caruur. kiisaskan ayaa haddana waxa uu soo laabtay sanadkii 2023 xilligaas oo la ogaaday in uusan raacin awaamirtii maxkamadda. ninkan waxa uu sii watay hawshiisa shahwa iibinta. madaxa dowladda Dutchkana waxa ay ku qiyaaseen xilligaasi inuu aabbo noqday ilaa 1000 caruur dunida oo dhan. dacwad laga geeyay maxkamadda ayaa waxay muujinaysaa in ninkan si ula kac been ugu sheegay boqolaal qoys isagoo oo ka been sheegay tirada caruur ee uu aabbo yahay. haatan waxaa barnaamijka cusub ee documentary oo ay samaysay Netflix ka soo muuqday haween kala duwan oo ka sheekeynaya sida loo khiyaamay. mid ka mid ayaa sheegtay in ay dareentay in la khiyaamay haatan care iyo murugo ay dareemayso kadib markii ay ogaatay tirada caruur ee uu ninkan dhalay. ninkan oo BBC-du ay isku dayday inay la xiriirto si uu wax ugu yiraahdo eedeymaha loo jeediyay ayaa diiday in uu wareysi bixiyo. waxa uu sheegay in dad badan oo shahwadiisa qaatay ay aad ugu faraxsan yihiin. ninkan lagu magacaabo Major waxa uu sidoo kale uu ku deeqay shahwadiisa muddo 17 sano. inta badan waxa uu ugu deeqay shahwada si aan shacsaneyn isagoo si toos ah ula macaamilay qoysaska halkii uu la macaamili lahaa xarumaha caafimaadka. gudaha Netherland waxa uu ku dhalay ilaa 102 caruur oo ku dhashay deeq uu siiyay ilaa 11 xarumo oo caafimaad maadaama laga mamnuucay in uu shahwo ugu deeqo gudaha dalka. sanadkii 2017 waxa uu sii waday hawsha isagoo bilaabay in uu dibadda u dhoofiyo. sanadkaas ayaa waxa dacwad ka gudbiyay haweeney iyo hay'ad taageersaneed kuwaas oo sheegay in ay falcelintiisu ay halis u yihiin in xiriir galmo ay dhexmaraan isaga iyo ilmihiisa. iyadoo maxkamadda la dhex jooga ayuu xilligaasi Major waxa uu qirtay inuu leeyahay ilaa 550 ilaa 600 oo caruur balse maxkamaddu waxay sheegtay in laga yaabo inuu aabbo yahay ilaa 1000 caruur oo kala jooga dhowr qaaradood. balse ugu dambeyntii maxkamadda ayaa waxay ka mamnuucday arrintan waxaana loo sheegay in haddii uu mar dambe uu sameeyo calaa cunug lagu ganaaxi doono lacag gaaraysa $100,000. barnaamij documentary oo lagu magacaabo ninka 100 canug leh ayaa waxa uu soo bandhigay wareysiyo la yeeshay qoysas badan oo ogaaday in ninkan lagu magacaabo Major uu leeyahay in ka badan 100 caruur taas oo ah arrin uu ka qariyay markii hore. waan xanaaqsanahay sababtoo ah xilligaasi waxa uu sheegay in uu ugu deeqay 5 qoys oo kaliya ayay tiri mid ka mid ah hooyooyinka oo lagu magacaabo Natalia oo BBC-du u rantay. waxa kale oo ay sheegtay in waxa ninkani uu sameeyay ay ogaatay warbaahinta. cabsida ugu weyn ayaa waxay tahay in caruurtaasi ay kulmaan kadibna ay jeclaadaan sababtoo ah way is aqoonsanayaan oo waxa jira wax isku xira mana ogaan doonaan in hal nin uu dhalay ayay tiri. balse ninkan Major waxa uu leeyahay sheekadan waxa laga sameeyay dadka aan ku faraxsanayn oo kaliya shahwadii aan ugu deeqay ee ay jiraan qoysas badan oo abaal uga haya ayuu yiri. waxa kale oo BBC-du sheegay in aanay waxba ka qaldaneen in boqolaal caruur la dhalo. waxa uu diiday suurtagalnimada in laba canug oo walaalaha ay xiriir jacayl ay sameyn karaan maadaama uusan ahayn nin qarsoon. dhinaca kale haddii aynu eegno daraasad laga sameeyay dalka UK ayaa ku talisay in la ogolaado ku deeqista shahwada laga qaado ragga geeriyooday. khubarada sameeyay cilmi baarisan ee la xiriirta arrimaha jacaylka ayaa sheegay in deeqaha lagu bixiyo xubnaha iyo sidoo kale unugyada taranka ee dadka geeriyooday ay wax weyn ku soo kordhinayaan dadweynaha. sanadkii 2017 UK waxaa ku dhalatay 2345 caruur oo ka abuurmay shahwo lagu deeqay. hase ahaatee waxaa marka ka dambeysa sii yaraanaysa deeqda noocan ee wadanka laga helo sabab la xiriirta shuruucda loo soo maro oo aad u adag. shahwada ragga ayaa laga qaadi karaa marka ay dhintaan kadib iyadoo lagu qaadi karo
habab kala duwan sida in koronto la adeegsado ama qalliin lagu sameeyo. Marka la ogaado kadib ayaa la kaydin karaa, waxayna khubarada saynisyahanadu ay aaminsan yihiin in ay shaqayn karto. Caddeyn lagu helay daraasadan ayaa muujisay in shahwo laga soo saaray nin dhintay xitaa 48 saacadood kadib geeridiisa weli ay unugyadeeda noolaan karaan. Haweeneydii lagu talaalana ay uur qaadi karto, sidoo kalena ay dhali karto ilmo caafimaad qaba. Intii ay socotay falanqayntan, Dr. Nathan Howson oo ka tirsan jaamacadda Leicester ee dalka Britain iyo Dr. Joshua Parker oo ka socda isbitaal ku yaala magaalada Manchester ayaa ku dooday in arrintan shahwada laga qaado ragga dhintay ay la mid tahay xubnaha kale ee deeq ahaan loo bixiyo. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa saaxiibayaal warbixintii aynu kaga hadlaynay nin dhalay 100,000 caruur ah, kaas oo si weyn looga hadalhayo adduunka oo dhan. Inta aynu warbixintan teeda kale ku kulmi doono, nabadgelyo.